asxaabta waa mar kale iyo muuqaal kale. maanta halkan joognaa maanta waxaan joognaa mid ka mid ah meelaha ugu qaniimsan magaalada Hargeysa. bal halkan qiyaasta waa halkii maanta intaanaan wadada weyn gaadhin. commentiga ku soo qora meeshaan. bal male meeshaan joognaa maanta waa halkii. xaafadan waxa weeyaan xaafadaha ugu qaniimsan ayay ku jirtaa magaalada Hargeysa. marka shilka hore iyo dadkii hore iyo dadkan dambe midba wuxuu yaqaanaa magac. marka magaalada ninta imka weynaatay dadka qaar baa halkan aragba ama wax macluumaad ka haynin oo mara uun dadka qaarna sidoo kale waxun bay ka maqleen. marka bartan waa halkii talo bal maleeya bartan aynu marayno maanta. meesha waxay u dhowdahay suuqa. marka meelaha suuqa u dhow oo dhan waxa weeyaan meelaha ugu qadiimsan sidaan u aaminsanahay, maadaama magaalada ka bilaamatay dooxa iyo suuqa areadaas. marka wadadan waxa weeyaan wadadii tegaysay xaafadda Maxamed Mooge. sidoo kale haddaan toos ka hayno waxaan tegaynaa wadadii siinay tegaysay baan ku dhacaynaa. adigu waxaan joognaa xaafaddii Sayladda. marka Sayladda areadeedii baan joognaa. wadadani waxa weeyaan wadada qurux badan aragtaan. waxa weeyaan iska aroor weeyaan. waa ilaa 8 iyo barkii 9 yar oo jirta. marka وما أدري كمان حافظها قديمة. قرادير نحكي من ناحية حافظ قرادير صباحات شيعة نعرف نسمعنا يمكن إلى نخلطنا والله أعلم. ير معلومات كرنا يا ماشا. صباحات شيعة سكول كمحمود أحمد علي و سيلدة. marka laakiin waxaa jira macluumaad badan oo dadka waalidka noo ah naga waaweyn ay garanayaan aan anagu garanaynin ku saabsan magaalada Hargeysa, taariikhdeeda, xaafad waxyaaba ay caan ku tahay baa jira. marka dadkii joogi jiray halkan 50 sano 60 sano ka hor waxa laga yaabaa inay macluumaad inta ka badan garanayaan. laakiin dadka dhawaan dhashay 10 jir 15 jir 20 jir 30 jir wax macluumaad oo badan inayna kasii ogeyn. waa axlaa. tooskaasan socon doonaa ilaa areada hore aan gaadhayno. iskuulka areadiisaas waxaa laga yaabaa yaraantaada inaad halkan mari jirtay, deganaan jirtay, ilaa hadda degan tahay, faamiligiini xusuus waxyaabahaas oo dhan. wadooyinka iyaga si fiican baa loo dhisaa. waa idiin muuqataa gaarka wadada. dhinaca waxaa loogu talagalay inay biyuhu maraan
marka waa la adkeeyay aad iyo aad si wanaagsan oo qurux badanna waa loo dhisay. gaarigaasi wuxuu ku socdaa baan u malaynayaa Sayladda. halkan waxaa ku yaala restaurant ama hodheel cunto oo la yidhaaho Sabaxareed. halkaas ka muuqdo halkaas Sabaxareed waa hodheel qadiimiya magaciisa in badan baan maqlay. marka كل حافظا تاريخ بكل هي كل اريا امرنا انه اريا قديميه حيابنا دعم تاعي على سو شيغا in badan ma soo socday soo lugeynayay. waxaan soo gaarnay iskuulkii baan soo gaarnay. marka iskuulkii waa deerkiisii xagga dambe ku yaala iskuulku. horaan u soconnaa asxaabta qaaliga ah. kuwana waa Ethiopian. wadankii waxaa kasoo buuxsamay Ethiopian baa kasoo buuxsamay. yaa ilaahi meel kasta kana waa iyagii weeyaan. meel kasta toobaa taagan.